الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا ليال noloshu waxay ku salaysan tahay halgan lagdan iyo siraac soo jireen ah oo ka dhaxeeya xaqa iyo baadilka oo ay darafkiis hormuud u ahaayeen walina u yihiin ambiyada iyo atbaacdooda darafka kalena ay hormuud u ahaayeen walina u yihiin shaydaan iyo inta raacday oo isugu jira insi iyo jinni xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala iyo ku xirnaantiisa ayaa halbeeg iyo u mastarad iyo marjic halganka xaqa kan baadilkana waxa mastarad iyo halbeeg u ah ku xirnaanta shaydaanka iyo hawada nafta waana halka ay ku jiraan imtixaanaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyada uu dhigay ee dadku ay ugu kala baratamayaan mid Ilaahay raali galiyo mid cara galiya rabbi waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله كان أبو ري جيريدي يا نولشة وحنا أبو ريسو إذن امتحانه كي نبا أبو عمل وناكسن فضيل بن عياض وحيري معنا ليبلوكم أحسنكم أيكم أحسن عملا وحل قوضا أخلصه وأسوبه كي نبا أبو عمل خالصا أبو عمل توصا إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا هديه عملك يهي بيري خالص وأنا النبي محمد لوقد يعني صلوات الله وسلامه عليه الله ما أقبله هديه النبي محمد لوقد يدي صلوات الله وسلامه عليه وأنا خالص أهينو إلهي درتي أنا اللولة جيدنا isagana lama aqbalo hatta yakuna khalisan sawaba ilaahay intuu ka kulansanayo labadaas sifo oo amalka aqbalaadiisa shardiga u ah oo ka horeeyo in muuminiin leeyahay marka horeba sida darteed waxyaabaha aynu sameeynayno ama lagu kacayo waxa loo bandhigayaa shariicada waxa loo bandhigayaa sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi waa la yeeli karaa oo lagu dhawaaqi karaa kalimaad aan waaqi u marxaati kacaynin الله أكبر أنت اللي يراهدو مسجدك والله قرحين كرا لكن وحال الله يهي مسجدك هذا قرحس ذا ياد وجوهي لسي ياد درتي وصبا يسي ياد جوشة كسي يسي ياد وقضى يتي النبي كما لقى جاري صلوات الله والسلام عليه عمل الله لو ود وادو إخلاصا من نقريا جوابته هذا ما ينقطه يا ويلك إلهي وحول الله يهي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم والذين امتحاميا جيران كوغانا إن كوا مجاهدين تدبتا يكوا صبرية دبر أديغي سيدا دبتا ودبر أديغي وحقا كدبر أديغي وبعد كدل قاتي ولهر دمي وإسكدع شيء وإنه أخبارتي إني يحكتين دبتا لغا امتحامي inay gaari timaado waxay ka mid tahay sunankaas rabbi oo ku imtixaamayo adoomadiis inay gaajo timaado waxay ka mid tahay sunankaas inay cabsi timaado waxay ka mid tahay waxa la yiraahdo sunankaas dariiqi looga bixi lahaana rabbi subhanahu wa ta'ala waa noo sheegay ibtilaaha iyo siraaca waxa keena waa wanaaga rabbi uu doonayo in loo helo dad ka shaqeeya oo darajo ku gaara halka uu jiro xumaha dadka shaqeeyo oo darakaad ku galahaya wal ciyaadu billah sida darteed hadii la helay baadilkii iyo xaqdaradii iyo ijraamkii iyo dambigii iyo dilkii kuwa ka shaqeynaya oo aanan ka noogaynin oo taqdiidinaya oo qorsheynaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu horteena dhigay fursad kale oo ah in sidii ilaahay uu rabay laga shaqeeyo baadilka laga hortago xaq la bayaaniyo ma la yiraahdo loo soo istaago u heelinta sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka kan ugu talagalay inuu ku noolaado adduunka kan isoo wanaagsan buu Allah abuuray annagu na dhax keenay ilaashadu yiri khaliifadu tihiin waxa laga ilaalinayaa shaydaan iyo cawaankiisa oo shayaatiin al-insi wal jinni isugu jira shaydaanku marka ciduu adeegsanayay oo uu mar walba dabada ka soo riixayay gaala kowka gaaladii markii la jabiyo looga adkaaday macrakadii ayaa waxa dhacday inay soo dagaalgeliyaan niman la yiraahdo khawaarij
nimanka khawaarijta ah oo maanta nagala joogaan shabaab iyo wixii la halmaala weeye kuwa uu markii gaal uu qaban waayay shaqadii la rabay lagu yiri idinku qabta oo marka la fiiriyo muuqaalka muslimiinka muuqaalka guud dhaqanka marka la fiiriyana gaalada ka arxan daran oo gaaladu ay noqonayso ee qarso ay noqonayso xaaladaas la nooliyay sida daraadeed nabigu waa ka digay salawaatullaahi wasalaamu calayh waana cadeeyay sida uu la macaamili doono haddii uu la kulmo dariiqii isaga ahaa uu ku cadeeyay dariiqaanan ahayn oo loo mari karana ma jiro marka waxaa halkaa nooga cad in dadka siraaca kan uusan ahayn mid maanta dhashay hadduusan dhalaninna qaabka loola macaamilayana waa la yaqaanaa waxayna u baahan tahay oo keliya in taariikhda la weydiiyo nabigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh markay soo baxaan haddii aan anigu joogo waxaan yeeli doonaa sidan soo socota lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caadin wa iram haddii aan la kulmo oo aan haleelo khawaarij iyo khayrlaawayaashaas ummadda aanan u naxaynin oo muslimka laynaya gaaladana ka carara sidii reer caad iyo reer thamuud loo halaagay baan u halaagi doonaa maaha waxaan ku samayn doona dil iyo iska dhicin oo keliya halaag baan ku ridi doonaa buu yidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa intaa weheliya wuxuu ku bishaareeyey cidday dilaan inay khayr la kulmayso oo laanta jannada ay leeyihiin ciddii dishana ay khayr helayso bale marka la dilo nooca ay yihiin buu nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh oo muxuu yidhi sharu qatla taxta adiimi asamaa wax la dilo tiirka samada waxa ka hooseeya iyagaa ugu shar badan buu yidhi xitaa gaaladay ka shar badan yihiin bale wuxuu sheegay aakhare marka la tago inay yihiin kilaabu ahli naar naarta marka la galo dadka lagu cadaabayo noocyo weeye marka qaar hadday waraabayaal noqdaan oo qaar masas laga dhigo oo qaar dibqalloocyo laga dhigo ee iyada booskooda kuwa dhaxlahaya khawaarij iyo shabaab noocooda kuwa ah weeye dadka noocaasa baa ina ku dhex nool wuxuu nabigu sheegay xilligay soo baxaan suuyi salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi waxay aalaa soo baxaan markay muslimiinta ay iskhilaafsan yihiin wuxuu yidhi yakhrujuuna calaa xiini furqatin min almuslimiin muslimkoo iskhilaafsan oo kala taagan oo muransan oo wuxuun laisku hayo ayay soo baxayaan marka ay soo baxaan muslimkaas iskhilaafsan isuma keenayaane fursadda intay ka faa'iidaystaan bay kana dilayaan halka maxaa ka soo baxayo shaqo uusan gaal qabanin bay qabanayaan wey macnaheedu xilliga ay soo baxeen oo Uthman khilaafadiisa dabayaaqadeeda ahayd oo tan intay khaliifka ay ka dilayeen khilaaf baa jiray waxba lagu yara muransanaa wixii bay buunbuuniyeen wixii bay dhex carareen khaliifkii muslimiinta inay dilaan bay ka ratibeen markii la dilay ka bacdina ciidankii bay dhex ordeen oo cali ciidankiisii bay soo raaceenoo haddana cali bay ku soo rogaal celiyeen markaasaa waxay yidhaahdeen waxa weeye adigaaba waxaa tahayba qofka la doonayay in la dilo ilaa inta markii dambe ka dileen khulafadii muslimiinta dad ay ka badbaadi waayeen dadkii iyagoo adduunka socda jannada loogu bishaareeyey dadkii ilaahay uu yidhi wassaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina ittabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum dadka noocaasa ha la yidhi dadka ay ka badbaadi waayeen dad maanta meelahan joogo inay ka badbaadaan ay weliba xal ka sugaan waa doqonniino cilmi darra xitaa ma aha doqonnimo weeye wax kaloo noqon karta ma jirto sidaa darteed walaalayaal dadkaas waa dad nooca ah waxa marka nafta ku celiya oo shidaalka u ah oo cimri dheerka u ah waa khilaafka la istilaafsan yahay annagu khilaaf ma noo yaryahay maya meeshaynu ka marayna khilaafka maalinka maanta waxaynu u nahay astaan haddii la dhaho khilaaf ha la sawiro soomaali baa la soo qaadanayaa haddii la dhaho naxariis darra ha la sawiro soomaali baa la soo qaadanayaa haddii la dhaho nidaam darra ha la sawiro soomaali baa la soo qaadanayaa haddii la dhaho fawda ha la sawiro soomaali baa la soo qaadanayaa marxaladda noocaas oon ku jirno dadkeennu ay la daalaadhaclaynahayaan dhibaatooyinka ay geysiiyeen doqonnimadooda baa intay soo baxeen bay iyaguna seef hoosta kaga garaacayaan oo kii fiigay iyo kii badbaaday bay waxa weeye ku samaynayaan wuxuusan gaalku ku samayn karaynin shaki kuma jiro gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan oo adduunkan hadda halka qaryo uu ka dhigay ICT-ga waxa la yidhaahdo waxay sheegahayaan macluumaada waxanba inaysan sanca muslimiin ahayn oo marka hore maxaa la dhihi jiray dad baa inxiraaf ku dhacay dad baa qalloocday dad baa si kale diinta u fahmay maya
aslan wa faslan waxa shaqaynayo waxay tahay qandaraas la soo qaatay berri baad arki doontaa kuwii wada madax ah berri baad arki doontaa kuwii wadamo kala degan berri baad arki doontaa markii ay dhamaato qandaraas ku dhamaado kuwii oo la kaxaystay war calaaqada ka dhaxaysa iyaga iyo kuwaas maxay yihiin kuwan ay gaalaysiinayaan iyo iyaga markii xogaan la joogo maxay haddana intay saaxiibaan protectionka loo siiyaa wax kale meesha ma yaalaan waxay tahay dad cumala ah oo u shaqaynaya shayaadiin baa magaci diinta intay huwadeen bay laba shaqo isku qabteenoo muslimiintiina inay lalaayaan islaamkiina suuradiisa ay xumeeyaan sheekh cabdinaasir xaaji axmed raxmatullaahi calayh talow yuudal midami ka galay yuudulmi u geystay yuudayn ka qabay reerheebuu yani waxa la yidhaahdo xasuuqay dhiigga loo qisaasay ee uu galay keebuu ahaa lama hayo muxuu ku maqnaa muxuu ka shaqaynahayay 50 sano ku dhowaad buu noloshiisa uusan wax kale u qabsanin xitaa macdar furanin ilaahay diinta u shaqaynahayay oo markii la maqlo 10 baan ka soo qaatay kitaabkaasuu ii dhigay macadkaasaan joogayoo waxaasuu noogu qoraa wax kale soo heli maysid ciidankii buu joogay daaci buu ahaa ninka noocaas qofku culayska ku hayo wuxuu u shaqaynayaa sheekhaas culayska ku noqday cidii uu ka soo horjeeday waana ibliis iyo acwaantiisa weyn sidaa darteed in lagu mashquulo ma aha macrakada marka lagu jiro waa in la fahmaa macrakada waa in loo gartaa sida ay tahay waa in la helaa madax garanaysa dagaalkan ay ku jiraan oo guusha inay ka gaaraan ay rabaan waaba hadday jiraan madax gul doonayso dagaalka nooca wiye dagaalka kan waa dagaalkii nabi nuux soo galay waa ku nabi ibraahim soo galay waa kii nabi muuse soo galay waa ku nabi ciise soo galay waa ku nabi maxamed soo galay dhammaantoodna ilaahay guusha ka wada siiyay calayhim afdalus salaati wa atammu tasliim dagaalkii baa nagu qabsaday xajmigeenna oo kuwa tabar yar oo ilaahay kuba samadiiday fulaya ah oo axmaqiya ah oo aan caaqibo lahayn oo bahalla ah oo manaxyaala oo qaarkood aabbayaashood dilay ama adeeradood oo xitaa damiir iyo dhiig aanu ku jirin baa naloo soo adeegsaday oo la awoodi karo in far iyo suul lagu qabto laakiin aafadu maxay tahay aafadu waxay tahay markuu shabaab ku yahay reerkaaga shabaab ma aha midka reerka kale ashida kugu haya waa kow markuu yahay maamulka kan oo la yiraahdo war waxba idinku jira waa qaylinayaana waa naloo gafayaa bay leeyihiin ka markii lagu xanto waa naloo gafayaa waaqacna waxba ka bedeli mayso oo waxa jira waa la ogsoon yahay sadarteed saddex baan u qaybsanna dile oo iyaga ah dayace oo maamulada ah daawade oo inaga ah garanaysaa kuwa iyagu dadkay dilahayaan maamuladii u dhaartay ummadan inay dhiigooda badbaadiyaan ummadii waa dayaceen wax kale ku mashquulsan waxaad moodaa geeday in laga soo furay guri dhiso xagga ka magaciisiyeyso wadanka dibadiisa lacagta u dhoofi hal la yiraahdo Istanbul baa guri uu ku leeyahay xaggaas ku adeer hadalkan ka dhiso billaah calayk fuundi Soomaaliyeed baa dhisahaya reer Soomaaliyeed baa degaya waxa weeye ii sheeg dad baa ka kareysanaya wahru majarra marba hadaad ka dhacday ha dhaafirin iyaga dhaxdooda ku xun ma jirto aqliga ma jiro hebel baa lagu leeyahay oo aynu garanayno intuusan xukunka qabanin jeebab ku banaanka u soo baxsanaayeen Kenya wuxuu ka iibsaday guri 1 milyan iyo 200 kun ah adaro 1 milyan iyo 200 kun 200 kun la saarad kaga dhisatay guri qasri ah garanaysa magaaladii bila ay ka helaan mushqaayad iyo mushaar ay ka helaan dadka dhisaya adigu wuxuu doonaa ku noqdaa lagu gubo beritoole laakiin kan ka shaqaysanayo gartiisa way ma aysan dhicin dadka saas waxaas ku mashquulsan dayacayaal weeye xoolaha saa loo cunayo xoolihii shabaab ummadda looga qaban lahaa waa xoolihii lagu difaaci lahaa dadka ummadda indhaha u ah waa xoolihii wadooyinkooda lagu dhisi lahaa waa xoolihii muwasasaadka lagu hirgelin lahaa mashaariicdii uu sheekha ku haminahayay xoolihii lagu qaban lahaa weeye waayo mashaariicda noocaasa dowladunbaa u qumta laakiin dowlad aan dowladnimo xambaarsanayn baa noo dowlad ah oo ay ku haystaan dowladnimadii shaatigeedii shabaab oo ay leeyihiin kuwaad canshuurta ka qaadataan baan mid u dilaynaa idinkuna nagama dhicin kartaan dayacayaal weeye intaana kala soo hadhay wixii baan daawanaynaa limaada waxa weeye cadaaladda waxa ay baray baa laga sheegay dawacadii isha cali ka lulata hebel haddii la dilay anna yaan la dilin wadaadu maxaad igu qaylada kugu wata maxaan dhibanka ka wadataa meenay ku dilaan baa doonaysa war ma awal baan joogayay inaad ku geeriyoto waxaan macno lahayn iyo in ilaahay dishkiisa lagu dilo ka qiimo badan kulay joogi mayside inaad badbaadiso ilmahaaga iyo ubadkaaga iyo maxastaada iyo maskantaada iyo in adigoo cararahay ay dabada kaaga dhacdo kee la qaata billaah calayk
ikhwati alkiram waxa lagu jira amal shaydaan weey waxaynu ka shaqaynaynana maaha wixii naloogu talagalay dalkan gumaysi baa soo maray talyaani baa soo maray ingiriis baa soo maray faransiis baa soo maray ciidan soo maray meesha ma jirto wadooyinkan wada dhaadheer wada taaganta la yiraahdo shayaadiin baa qodatay oo falatay dadku reebaadiye u badnaayeen waa la joogay raali lagama ahayn waa iska dhiciyeenoo cudud iyo awood bay u sheegteen laakiin diintooda waa huwanaayeen markii gumaysan la iska dhicinayay diin baa la huwanaa culimo hagaysay oo hogaaminaysay culimo laga ilaalinayay inay ummadda saameyn ku yeeshaan midan baynu haynaa waxayna ka soo jeedaa khilaafka la iskhilaafay markay wax yar soo kacaan ayagii shabaabkii dilahayay baa la isku kooleynayaaba afooyinka haysta ka mid iyo dulmiga cadaalad darrada adigoo ka digaya baa lagu leeyahay may idinka dhalay waxa ka mid ah aqli darrada marka farqa u dhaxeeya iyaga iyo gumaystii muxuu yahay gumaystii wuxuu sameeyeen bay sameeyaan iyagu waxa ma kala hambeynayaan laakiin farqu muxuu yahay magaci diinta ay sheeganayaan gumaysuhu laakiin diinta ma sheeganayaan gaalnimada bada kala tagnaaya xoogaa intaas ummadda qaladay baa laga yaabaa maya diinta sheegasho diin kuma noqoto diintu amal bay ku noqotaa diin ku noqotaa masalada iimaanka ee muranku uu ka taagan yahay la isku haystana ahlus sunna wal jamaa waxay u yaqaanaan tasdiiq iyo qowl iyo amal wada socda baa wuxuu yahay iimaan tasdiiq kaliya oo aan astaan kala wadanin iimaan ma aha amal kaliya oo iimaankii aanu la jirin oo soonkii la yiraahdo gaasiri baan u soomahayaana isaguna iimaan ma aha iyo islaamnimo toona wixii isku taal la rabaa in laga dhabeeyaa marka la doonaya in looga hortaga la doonaya sadarteed ummadda waxaan ugu baaqayaa cadowga jaqahaya inay iska qabtaan kuwa dayacahayana waxaan leeyahay idin suurtoobi mayso inaad ummadda shabaab ku fiirstaan madaxna u sii haataan laba mid ama shabaab aad ummadda ka dhicinaysaan oo dawlad sax aad noqonaysaan ama dadkan waa isku filan yihiin wallahi maxkamad baa idin soo taagayaa oo wallahi intii la maray iyo intii dhib iyo dacas iyo dhibaato lagu mutaystay xukunka iyo kursiga u dagaalamayseen baa laga wada xisaabtamaya markaas aad waxa weeye xabsiye ku galeysaan ilaahay u toobad keena ilaahay ka cabsada waxaad u dhaarateen dhowra wixii aad ummadaas ugu soo hor istaagteen oo xoolahooda u qaadateen wax uga soo cesha waradar wixii 20% soo celiya amniga ilaaliya ummadda tandhigeeda ilaaliya sharafteeda ilaaliya haddii saan ummadda lagu sii wado oo la ogolaysiyo fulaynimada shisheeye markuu yimaadana waa iska qaadanaya waayo cunuga gurigiisa lagu dilo banaanka fulay buu ku yihi dadka dalkooda lagu dhex garaaco oo lagu gumaysto oo shabaab miduu dilay miduu maamul u caga jugleeyo laga dhigo markay damcaan inay wadankooda wax u qabtaan ay ummada kale la kulmaan dadkaas dad hoos forsanay noqonayaan waayo waxa la soo baray inay waxa weeye ii sheeg idabsadaan oo aysan ku kicin waxa weeye waxa saadadoodu ay sameynayaan ama ay saadadoodu su'aal ku soo celinin dadka inuu maganta u nahay oo la daba orday hay'adaha iyo ilaahay kuma sabadiiday gaalada iyo reer galbeedka adeer isku tuntaan ka aad ii bariyayso si aad iigu amar ku taaglayso dadkiisa kuma tunto oo canshuurta ka soo qaatay adoo sadaqa soo qaatay si aad iigu amar ku taaglaynaysaa dadku xaq bay u leeyihiin waxaad ugu dhaarateen inaad ilaalisaan haddii aad ka soo bixi weydaanna inay hortooda idinka leexiyaan maaha lama lihin maamulada hala dumiyo laakiin xilkooda ha gutaan hadday gudan waayaan inay ummadda hortaaganadaan xaq uma laha dadka soo haray gar maaha walaalayaal dugaag in la noqdo waxa la yiraahdo duurjoog oo kale duurjoogta waxa laga cunayaa neef baa laga qabsanayaa kulli waa yaacayaan meel kor ah bay istaagayaan waa soo eegayaan hadday ku soo wada yaacaan halka bahalo soo weeraray waa dili karaan gees bay ku dili karaan sax maaha ina bixin mayso maalinba kii u mudnaa inta la dilo in waxa isu kaayay keena tacsi iyo calaacal iyo waawaray iyo sayeela iyo musanow ina bixin mayso culimada waxa la doonayaa war naftu marbay go'aysaa liul kulli ajalin kitaab war shabaab wax ma dilo malaka mawd baa ilaahay u wakiishay inuu nafta qaado dab hadii la yiraahdo ma afka gubanaya la yiraahdo shabaab waa khawaarij hadii la yiraahdo naftu idinka dhicmaysa dadka xaq u bayaaniya oo macrakada horgala oo nimankan magaca siyaasadda ummadda ku rogay runta u sheega waxa ugu shahaado ugu qiimo badan baa la yiri kalimatu haqqin amaama sultaanin jaa'ir kelmad xaq oo lagu yiraahdo sultaan jaa'ir waxa noo taliya jaa'iriin weeye mid xaq ku taagan ma jiro
dadkeenni ha ahaadaan laakiin shaydaannimay ka shaqaynayaan fisqi iyo fujuur bay ka shaqaynayaan dhac bay ka shaqaynayaan shisheeyaha loo nugleeyo waddankay ka shaqaynayaan waa inay shaqadii qabtaan loo igmaday haddaysan qabanin dadka carrada u taliya waa idinka dastuuradooda waxaa ku yaalla shacabku inay samaystaan oy doortaan ummad ka shaqaynaysa ama madax ka shaqaynaysa iyaga danahooda dowladdu waa adeegihii ama madaxdu waa adeegihii shacabka haddaysan idiin adeegin cid idiin adeegaysaad xaq u leedihiin waxaad u baahan tihiin marka in la sameeyo isdhammaystir ha la kabo ha lagu kaalmeeyo ha gutaan xilkooda wahru majar shabaab iyo waxaa soo haray daacish iyo inta la halmaanta su'aal baan idin weydiinaynaa bilaahi calaykum midiin tirsan yihiin intaad disheen tira ahaan keliya muu taqaanaan inta ruuxu disheen waxaad ku disheen ma garanaysaan ma xaq baa ma baadil baa ma mudnaayeen inay dhintaan xadiis bay daliishadaana waxay yidhaahdaan uma layubcauuna calaa niyaatihim caaisha waxay tihi nabigaa wuxuu sheegay salawaatuullahi wasalaamu calayhi ummad soo socota oo meel bannaan oo maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa laisla rogi doonaa kaasaa waxay tihi rasuul allah oo kuwaas masaakiinta ahoon dagaalka ku jirinoo meesha lagu laayay say xaalkooda noqonaya waa lala rogayaa buu yidhi niyadoodaana lagu soo saari doonaa shabaabku markay dadka laynayaan tarabta u laynayaan xadiiskaasay daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacdaye xadiisku ka hadli maayo in dad bini aadanoo jira ay iyagu musiibo noqdaan oo markaa intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yidhahdaan ilahu intaasaan kuu soo dillay adigu kala saara kii ficnaa kii xumaa adigu ma fiicanta sidaad u disho xaggaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu laynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan ood samaynaysaan ummaddaad cadowgeeda u nuglaynaysaan bikulli maa fil amri waa intaa haddaydan cadowga la shaqaysanaynin sidatan ummad looguma hiiliyo kuwa la soo qalda ee aaminsan wuxuunbaa ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajinno war qofkaad wax u hagaajinaysa haddaad disho maxaad hagaajisay billahi calayk yaad wax u hagaajisay caqliguun intaa ma garan waaye alaysa minkum rajulun rashiid wa nin wax kala garanaya idinkuma jira miya maskaxdii xaggee baad la aadeen kuwa culimmada sheeganahaya ee culamaa usuuga ah ee zuurka iyo buhtaanka diinta uga been sheegahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waxaad ilmaha ku qaldaysaan ka fiirsada waxaydan ubadkiinna u dirteen ilmo soomaaliyeed ha u dirina ilmaha aad baadda iyo zakada u qaadanaysaan waxaasu jihaadkii nebiga ma aha salawaatullahi wasalaamu calayh su'aal kalean idin weydiinaynaa intaad agoontaysaan ma idiin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabbihii masruufahayey aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yidhahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midiin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midiin tirsan yihiin intaad labadaa isugu darsadeen midiin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel ah aad gablan ka dhigteen midiin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midiin tirsan yihiin billahi calaykum su'aal kale maxaa guulood ka gaadheen maxaad xaqiijiseen waxa ummadda ay ku naalloon karto ka dhaxeeya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo u soo noqday oo caa'idka waa maxay aan ku wada faannoon idinka mid noqonne noo sheega guusha mise waxaad doonaysaan guuldarro iyo geeri kaliya ummaddo dhan inay ka wada shaqayso intaa maxaa ku weheliya kuwii idinka dhexdiinna aad iska disheen maxaad ku disheen markay idinla jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeense maxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil keliya in loo shaqeeyo ama wax loo dilo justi dil baan wax u dilayaa waxaan dilayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhiibayaa maxkamaddii waa isaga ma tukada hadduu doono qaadkuu cunaa ciyaal suuqnimo kaleu ku jiraa xoogaa baa loo dhiibayaa waxaa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo laa baa la leeyahay waxaa xaggee bay diin ilahay kaga taallaa waxaasu haddii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuugannimo fulaynimo bahalnimo wax kastoo xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinayaa ma is weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeye oo waddanka joogtay iyo intaad fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeye oo timid oo ku timid idinka fadligiinna iyo shaqadiinna xun ma is weydiiseen inta qaxday
mis weydiisan intaas inta ka gaalowday, mis weydiisan inta ka inxiraaftay, mis weydiisan inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdo saxarayaasha carar iyagoo idinka jira, inta reero kala loo mis weydiisan idinka daraadin. masawirka laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan mis weydiisan, masawirka bidin anfacaya. haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marayay siyaasadu taas maaha. wadankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay, laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha. laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-ga kala ah ay ku jiraan. gala dariiqeeda soo mara, qabaa'ilkiina soo dhex mara ilaa qoriga ma ogi. fikir qaldan waa qabi kartaan, ummadda isa sixi doonta. kuwa kale oo qaldanba waa jiraan, laakiin waa ku dilayaa هذه فرعونية بعينها. garanaysaa fircoon tamxulaha wa idin dilaya qortan idinka goynaya marba la in ittakhadta ilaahana ghayri la aj'alanaka min al-masjunin law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa law sallimannakum ajma'in amantum lahu qabla an adana lakum ma wahad rumaysan Musa anigoon idin idmin. هذه فرعونية إسلام ما هرليا waxaan idinku baaqaynaa ilaahay inaad ka baaqdaan. ummadaas aad indhaheedi rideen indhaha la idinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal. ayadoo sidaa aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan waxaad badeen, oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda ah oo la qalday oo idinka haddaad toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaanoo meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan. laakiin sida hadda aad ku jirtaan si idin bixinaysa maaha adduun iyo aakhiro. waxa aad doonaysaan si aad ku gaaraysaanna maaha. berrina waxaa la arki doonaa shabaab iyo gaalo is wata oo ka tarjumaya waddanka gebi ahaantiisaba in la qaato. ummadda waxaa la gudbaan marka inaan waxaa loo dhaafin ummadda laga qabto. sheekh cabdinaasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin. ma tukataa salaada ma taqaanaa wax ma qori kartaa, ummadda intaasaa lagala dagaalamaya. qandaraaskana cid kale laga soo qaatay. saa darteed haddiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal. ciddii gaaraba iyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho. maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafanno. nimanka axad ha loo yeedho cadow ka daran ummadda Soomaaliyeed ma dhex joogo. ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha u naxariisto. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا فعاله. إله ذنوبتنا ضاف، إله ذنوبتنا ضاف، إله يو ذنوبتنا ضاف. إله وحيان كاغلنا واكواغا توبدكنا يا ربي ونغا توبد أقبل. إله أشرارت الشباب نغا قبو، إله نغا قبو، إله نغا قبو. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إله قبا شدران قبو، إله وانغو قوقين، إله وانغو حاد قدبين، إله وانا قرصدين. ilaahayow dhibaato aysan gaala noo geysanin bay noo geysaneen. rabbiyow sharkooda iyaga ku celiyo ummadan ka qabo. ilaahu diinkeena makansiin. ilaahu intay diraan shabaab u naxariisto. ilaahu daraje. ilaahayow waxa weey dambigooda ku dhaaf oo sheekheena u dambeeyay ilaahu u naxariiso. ilaahu meel sare gee. ilaahu meel wanaagsan gee. ilaahu waa naga raystay annagana rabbiyow noo roonow. ilaahayow dalkaas iyo diintiisa iyo cidii khayr la rabto rabbiyow khayr ba waafaji. ilaahu cidii shar la rabtana rabbiyow qabasho daran qaba adigu ba awoode. ilaahu diintaada noo soo celi. ilaahu noo soo waraabi. ilaahu noo soo waraabi. ilaahu barakaadka samada noo fur. ilaahu mid arlada noo fur. ilaahu barakaadka samada noo fur. ilaahu mid arlada noo fur. ilaahu xooluhu dararaan. ilaahu xooluhu mataaneeyaan. ilaahu dhulku barwaaqo noqdaa. ilaahu dawladaha noo hagaaji. ilaahu madaxda noo hagaaji. ilaahu qulubtooda isu soo dun. ilaahu annagana qulubteena isu soo dun. ilaahu khilaafka iyo muranka iyo ismaan dhaafka nagu dhex jira rabbiyow naga saar. kuwa diintaada ku toosan oo isku waafaqsan oo isku jecel rabbiyow naga dhig. ilaahu dalkeena noo hagaaji. ilaahu diinteena makansii. ilaahu awlaadda noo hagaaji. ilaahu ooryaha noo hagaaji. ilaahu adduunyada noo hagaaji. ilaahu aakhirada noo hagaaji. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.